عادة تورق لا تورق بان كفر معي تورق ساكا لحدي صبح لما ساعات الصبح تكوي دبل هذي أروح دجال باخبر عمي دجال كاس دجال ولس بوها ماذا حالاني جاي خدع جاي ماذا حابورها كسر يلاني عدن هراء لاني ما يراجع دجال كاسي لكن حاجة بورها دور راجع ما بدن أنا ودن كتقرأ جدا شو ودن كتقرأ إذا ما بدن في الصومال اللي أنا إذا دافعي دجال كاس راجع مرو سود وحرت السود جاري مرنا وسير كذواد وحاجة على صلاة مقضي خساري سمعنا نحتاجين لكن كل أدام ورا يسمي إذا جا أقولهم لغة برضبة لغة برضبة خسارة شيختين خسارة حب الشيخ ما في مال باله هذه ديو رقبة أنت أنا كورا إن أنت وياه ترى نفوي بكره لكن كل خسارة بدن ولا بدن بني واجه ما يقدر مجاله وهذا مجال البورة وحيد 16 كيلومتر فقد ضرب في صدق السوق يعني قال مركو ورا بورة كذا قبل عمي أكيد مرة ولا سوسة دادجي مركز مرة ولا صون نقضي يعني حبض والنوم مغرسي ليه حبض عراس يوحدمي يعني وأنا كريو أنا حقيقي كريم لا يهدأ خسارة إن لما ضمن خسارة لحال قبان وبينوش يعني لها كل يجا كملها لا ضربة لكن ترى الخسارة حقيقي ولا ما هي لكن حقيقيا لما هو ترى ولا يجوا معمولوا هذا رأيان أو نبغى نقول حسن لكن خسارة ما كان عماشة. إسلا مركان وحلا بدل لا شيء جينا يسوي دار سنة يان ويسكر ديان مدافيد علوس قوبتا يقريها الله يقام BMK قوة صلا شيء جينا السببين خسارة ينفضوا دقائق عيدا إلا بدل عيام موجينا يا إنه يشرح حالة ديار قرو دجال أو مركلة كقرحة دجان كاسي qoraal ka soo baxay maalintii Khamiistii qaramada Midoobay ayaa lagaga hadlay xiisadda colaadeed ee ka taagan deegaanka Tuqaraaq waxaana labada dhinac ay isku hayaan halkaasi loogu baaqay inay fuliyaan ballanqaadkii ay u qaadeen beesha caalamka ee ahayd inay si degdeg ah u fulinayaan xabad joojin sidoo kalena waxa loogu baaqay Soomaaliland iyo Puntland inay kala qaadaan ciidamada oo ay joojiyaan hadallada xanafta leh ay isku marinayaan warbaahinta warar kale oo la xaqiijin ayaa sheegaya in dhexdhexaadin iyo waawaan kale oo laga dhaxwada Soomaaliland Puntland loogu soo bandhigay in qolo kasta ciidankeeda dib ugu celiso halkii ay ku sugnaayeen dagaalka ka hor isla markaana masaafo 50 kilomitir ah ay u dhaxayso labada ciidan balse ilaa hadda labada dhinac midna kama hadlin arintaas madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hore u sheegay in aan cidna ku duulin iyagu hase yeeshee weerar lagu soo qaaday ciidankoodii wuxuuna mas'uuliyadda dagaalkaasi madaxweyne Muuse dusha ka saaray dowladda federaalka Soomaaliya isagoo xusay in aan marnaba kala hadlaynin arrimaha Tuqaraaq madaxweyne gaas balse ay kala hadli doonaan madaxweyne Farmaajo maamulka Puntland ayaa isaguna dhinaciisa sheegay inay sii wadi doonaan dagaalka ilaa inta ay dib u celinayaan ciidamada qaranka Soomaaliland halkii ay ka soo duuleen bartamihii bishii May ayaa dagaaladii ugu cuslaa ay ku dhexmareen deegaanka Tuqaraaq ciidamada qaranka Soomaaliland iyo kuwa Puntland kuwaasoo sababay khasaarooyin culus oo isugu jira dhaawac dhimasho iyo hub la kala qabsaday sidoo kalena waxa istaagay tan iyo maalintaasi isu socodkii gaadiidka iyo ganacsiga ee u dhaxeeyay Soomaaliland iyo Puntland